deeqdan raashina waxaa soo diray jaaliyadda Somaliland ee ku nool wadanka Denmark iyadoo lagu soo hagaajiyay mu'aasasada Al-Karam oo ka shaqeysa arrimaha dacwadda waxaana deeqdan ka faa'iideysan doona ku dhawaad 700 oo qoys oo kamid ah dadka ku tabaaleysan degmada Dila ee ay saameeyeen abaaruhu ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Al-Karam iyo saraakiil kale oo ka tirsan hay'addaasi waxaana sharaxeen deeqdan ay u qaybiyeen qoysaskan ku tabaaleysan degmooyinka hoos yimaada degmada Dila ee gobolka Awdal waxa weeye iska hanqabadka isku naxariisashada iska warhaynta in la isku dhaxnoolaado in waxa weeye la iska warhayo sida walaalaheena reer Denmark ay waxa weeye walaalahooga waxa weeye ku abaaraysan gobolka Awdal ay runtii u soo xasuusteen markay arkeen ay uga tiiraanyoodeen in meel walba la joogaba waxa weeye looga tiiraanyoodo la iska warhayo la soo dhaweeyo maalka waxa weeye la wada cuno sharcigeennuna saasoo tilmaamaya oo sadaqada waxa loo jideeyay yaani waxa weeye kii faqiirka iyo kii qaniga in la wada cuno maast karamna intaas ka shaqeysaa in walaalaha cidda waxaysa ay uga qaado cidda aan waxba hayna waxa weeye ay gaarsiiso aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa meesha ka soo saareen ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax ka khayr badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu bedelo halkan maanta walaalayaal wada arkaysaan waa deeq kala duwan oo runtii raashin ah waayo dadku raashin bay u baahan yihiin waqtiga haddii roobkii da'ay waxa weeye weli muu soo saarin zarac iyo wax la cuno muu soo saarin biyo dhaamis iyo raashin bay markii hore soo hadal qaadeen oo ugu talagaleen biyihii ilaahay bay noo soo dhaamiyey subxaanahu wa ta'aala ilaahay bay noo soo dhaamiyey marka waxay israadeen xagga raashinka waxay ka kooban tahay si aad arkaysaan bariis iyo daqiiq iyo markaa waxa weeyaan sonkor iyo saliid iyo caano shantaa item weeye oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dad 700 oo qoys ah danka kale odayaasha waxgaradka ee maamulka degmada Dila waxay ka mahad celiyeen deeqahan la soo gaarsiiyay iyagoo bulshada ku nool wadamada dibadda ugu baaqay inay qoysaskaasi ay ka taageeraan qalabka laga shaqeeyo wax soo saarka beeraha si ay uga maarmaan deeqaha la soo gaarsiiyo waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Al-Karam ee la noogu soo dhiibay raashinkani mucaawinada ee sida quruxda badan ee wanaagsan ee qiimaha leh loo soo gaarsiisay gabagabadii mas'uuliyiinta kala duwan ee hay'adda Al-Karam waxay deeqahaasi wada gaarsiiyeen 700 oo qoys oo ka kala yimid deegaanada hoos yimaada degmada Dila